madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa meer kale weerar afka ku qaaday Ilhan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka wuxuu sheegay in Ilhan ay tahay qof musuqmaasuq badan isla markaana warbixinadeeda uu la socday muddo 2 sano ah maxaa ka qaldan Ilhan Cumar waxaan rajaynayaa hawshan in uu soo faragelin doono xeer ilaaliyaha guud waxaana akhrinayay warbixinadeeda muddo 2 sano ah oo ku saabsan sida ay u musuqmaasuq badan tahay miyaad rumaysanaysaan si waliba ayay inoogu sheegaysaa sida dal loo maamulo waa maxay waxa ay sameysay qofkii ay reer Minnesota doorteen maxaa idinka qaldan dadyow ayuu yiri Donald Trump dhanka kale Trump wuxuu musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyay in gobolka Minnesota uu doonayo in uu ka dhigo xero qaxooti wuxuu sidoo kale sheegay in Biden uu doonayo in uu meesha ka saaro xayiraadda dhanka safarka ee lagu soo rogay muwaadiniinta dalalka ay ka taagan yihiin dagaalada boqolkiiba 70 korar ah dadka qaxootiga oo ka kala yimid dalalka ugu khatarta badan adduunka oo ay ka mid yihiin Yemen, Syria, Somalia. Biden wuxuu u bedeli doonaa Minnesota xero qaxooti oo dugsiyada iyo isbitaalada ay ku yihiin ayuu yiri Donald Trump.